Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan idiin hayaa sheekooyinkii Been Hawaas mid ka mid ah. Waxaa jiri jiray nin lagu magacaabo Been Hawaas. Been Hawaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u damac badan, u khiyaano badan, dadka siro ayuu ahaan jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu waxa uu soo kaxeeyey sac uu lahaa, wuxuuna u soo kaxeeyey suuqa si uu u soo iibiyo. Intuu dhex sii socday ayaa waxaa ka hor imaaday 3 nin. Kadibna waxay ahaayeen 3dii nin kuwo xaasidiin ah. Waxay istuseen in ay Been Hawaas xasdaan, kadibna ay saca ka qiimo dilaan. Way u tashadeen. Kadib markii ay u tashadeen ayaa mid ka mid ah Been Hawaas dhexda u galay uu ka hor imaaday. Markuu salaamay kadib, waxa uu yidhaahday Been Hawaasow, maanta suuqa waxaa joogo nin taajir ah. Waxa uu doonayaa sac buuran oon seen aan lahayn. Sacaaganu waa buuran yahay, astaamihii uu raadinayay oo dhanna waa uu leeyahay. Laakiin halka ciladu jirto waxay tahay sacaagu waxa uu leeyahay seen. Been Hawaasna waxa uu yidhaahday nin yahow ka waran haddii aan seenta asaga dhanba aan ka jaro. Ninkiina waxa uu yidhaahday waa arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah seenta haddaa ka jirtid intii calaamad oo dhan waa uu lahaanayaa. Been Hawaas mididiisii ayuu la soo baxay, sacii ayuuna waxa uu ka jaray seentii uu ka jaray. Ninkii ayuu u mahad celiyey oo wanaag u sheegay, oo wuxuu dhahayay abaalkaaga waan kuu gudi doonaa. Safarkiisii ayuu sii watay. Intii uu sii socday ayaa ninkii labaad 3dii midkii labaad ka hor imaaday. Wuxuu yidhaahday Been Hawaasow, wallaahi nin derisna waan nahay, nin fiicanna waa tahay, sac buuranna waa wadataa. Laakiin arrin sir ah ayaan kuu sheegayaa. Suuqa waxaa jooga nin taajir ah. Waxa uu doonayaa sac aan seen lahayn, geesana lahayn, oo wuxuu dhahayay geesaha inuu dadka ku dhibo ma doonayo. Sacaagana intii oo dhan waa leeyahay. Been Hawaasna mididiisa iyuu la baxay. Sacii ayuu waxa uu ka jaray geesihii. Waxa uu u mahad celiyey ninkii. Kadibna waxa uu sii watay safarkiisii ayuu sii watay. Been Hawaas intii uu sii socday ayaa waxaa ka hor imaaday ninkii 3aad. Waa uu salaamay wuuna marxabeeyey. Kadibna waxa uu yidhaahday Been Hawaasow, sacaaga seen ma leh, geesana ma lahan. Nin taajir ah oo suuqa waxaa jooga sac intaas oo dhan aan lahayn, dhagana aan lahayn doonayo. Sacaaga intii calaamad oo dhan waa uu leeyahay oo waa caddaan oo barshaxan ah. Seen ma lahan, geesana ma lahan, laakiin dhaga ayuu leeyahay. Been Hawaasna wuxuu yidhaahday ka waran haddii aan dhagaha ka jaro. Ninkiina wuxuu yidhaahday waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Lacag fiican ayaad ku dhufanaysaa oo cid kale oo suuqa kugula tartamaysa maanta ma jiraan. Been Hawaasna sidii ayuu yeelay. Safarkiisii ayuu sii watay asaga u mahad celinaya ninkii. Waxa uuna gaaray suuqii. Suuqii markii uu gaaray ayaa dadkii oo dhan ku soo aruureen ayaga oo doonaya siciis inay fiiriyaan. Mise waa wada sac dhaawac ah, geesihii, dhagihii, seentii midnaba. Waxay yidhaahdeen Been Hawaasow sidee wax u jiraan. Wuxuu yidhaahday waxaa la ii sheegay nin taajir ah oo suuqa jooga doonaya sac aan seen, geesa, dhaga midna lahayn. Dadkii way ku qosleen. Waxay yidhaahdeen midkaas ma nin dabbaal ahba ma doqon baa saca noocaasa doonayo. Been Hawaasna wuxuu ogaaday in nimankii jidka ka hor imaaday in ay soo khiyaaneeyeen. Sicii ayuu qiimo jaban isaga soo iibiyey. Waxa uuna soo aaday gurigiisii asaga oo aad iyo aad u xanaaqsan. Waxaana ka hor imaaday 3dii nin. Markuu arkay ayuu farxad iska raadiyey. Aad iyo aad u farxad isaga doonay. Nimankii ayuu wuxuu yidhaahday maanta arrin fiican ayaad ii sheegteen. Sicii qiimo fiican ayaan ku helay. Nimankii waa la yaabeen oo waxay la yaabeen qiimaha oo saca ku soo helay, saca wada dhaawaca ah. Intaas waxa uu sii raaciyay, beri ana qadada igu leedahay abaalkiina waxaan ku gudo ma aqaan, laakiin beri ayaan idin marti qaadayaa. Been Hawaasna kadib wuu sii baxay. Waxa uuna sii aaday gurigiisii ayuu sii aaday. Gurigii markii uu tagay ee islaantii ay ka foortay gurigii ayuu waxa uu sheekeeyay dhibaatadii maanta qabsatay iyo sidii nimankay u sireen iyo sidii u doqomeyseen asagana uu doqon u noqday. Wuxuu yidhaahday waa inaan ka aarsada ayagana aan doqomeystaa. Beri waxaan u sameeyey martiqaad aad iyo aad u weyn. Martiqaadkaas ayaan uga aarsanaynaa ayuu ku yidhaahday. Subaxdii markii dambe la gaaray ayuu islaantii waxa u keenay bakaylo. Wuxuu yidhaahday bakaylahan nahay. Nimankii duhuradii ayay ku imaanayaan. Aniguna meel dheer ma aadayo ee gurigaas laabkiisa ayaan gelayaa. Markay ku imaadaan waxaad ku tiraahdaa bakaylaha, bakaylow Been Hawaas u tag. Waxaad u sheegtaa in nimankii martida ahaa oo sugayay ay saaxiibadiis ahaa ay u imaadeen. Kadib bakaylaha soo fasax. Dhex intuu sii ordayay anigu waan soo qabanayaa. Waxaan iska dhigayaa in uu bakaylaha oo arrinta dhan oo ii soo sheegay. Islaantiina aad iyo aad ayadoo la yaaban ayay tiraahday waa yahay
waa hagaag. Duhradii markii la gaaray ayaa waxaa imaadeen nimankii gurigii ayay soo booqdeen Ben Hawaas. Markay guriga raaceen ayaa islaantii guriga ka furtay. Way soo dhaweysay. Bakaylihii ayay qabatay waxay dhahday Ben Hawaas hadda waa maqan yahay. Bakaylihii ayay waxay dhegta wax u sheegtay ku dhahday orod oo tag Ben Hawaas waxaad ku tiraahdaa nimankii martida inoo ahaa ee aad sugaysay waa imaadeen ee dhaqso soo orod imow martida way ku sugayaan. Saddexdii nin aad ayaga ula yaaban ayaa waxay dhaheen war Ben Hawaas keligiis doqon ma ahane islaantuba ileen waa doqon waa wada qoys doqomo ah. Bakaylihii waa uu baxay. Nimankii wax yar kadib waxaa imaaday Ben Hawaas asagoo islaantii ku dhahay bakaylihii wuu i imaaday akhbaartiina waa i soo gaarsiiyey. Kadib nimankii intaas waa ay fiirinayaan waa ay nala yaaban yihiin arrinta dhacayso iyo sida ay wax u socdaan. Kadibna waxa uu sameeyey qada aad iyo aad u heer sareyso. Waxay fadhiisteen oo waxay dhaheen niyahow sidee baad sacii qiimahaas ugu soo sheegaysay. Wuxuu yidhaahday waxaa la kulmay nin taajir ah oo inta astaan doonayo. Kadibna sacii asaga ayaa iga iibsaday. Arrintaas markii ay dhacday waxay yiraahdeen iyo bakaylahan xaaladiisa ka waran. Wuxuu yiri bakaylahani waa bakayle aad iyo aad fariid u ah akhbaaraadka xaaskayga oo i soo gaarsiiya. Anigana markaan beerta shaqada ku jiro waan u soo fara akhbaarta wuuna soo gaarsiiyaa. Nimankii way la yaabeen waxay yiraahdeen Ben Hawaasow niyow bakaylahan ma naga iibisid. Wuxuu yiraahday maya bakaylahan iibin maayo lacag intaas ayaan ka soo bixiyay 1 diinaar ayaan ka soo bixiyay. Waxay yiraahdeen niyow 1 diinaar anaga diinaar kale kugu darayno wuu ka diiday. Wuxuu yiraahday haddii 20 diinaar isiisiin waan idinka iibinayaa. Kadib sidii ayay uga iibsadeen oo bakaylihii lacagtii ayay ka siiyeen wayna soo qaateen. Saddexdoodii ayaa is wareystay waxay dhaheen bakaylahan saan u qiimaha badan sidoo 20 diinaar inoo soo siiyay Ben Hawaas waxaan u maleynayaa inuu nasirayo. Haddana waxay yiraahdeen waa ta arkaynay. Waxay yiraahdeen bal haan baraaweyno caawa. Bakaylihii mid ka mid ah ayaa wuxuu yiraahday gurigiis u tilmaamay xaaskayga u tag waxaad tiraahdaa saygaagii ninkaagii iyo saaxiibadiis caawa way ku imaanayaane martiqaad aad u heer sareeyo u sameey. Suuqa ayay iska sii aadeen. Markii in cabaar maqnaadeen habeenkii la gaaray ayay guriga ku soo noqdeen. Markii ku soo noqdeen ayay waxay u imaadeen ninkii xaaskiisa ku yiraahday aaway cashadii. Waxay tiraahday aad saaxiibada kula imaanayaan maxaad mar hore akhbaarta ii soo gaarsiin weysay casho heer sare waa idin diyaarin lahaayee. Waxa uu yiraahday bakaylihii aan soo iibsaday maanta akhbaartayda kuma soo gaarsiin miyaa. Waxay tiraahday bakayle weligay akhbaar qaadayo ma arag oo adiga doqon baa tahay. Nimankii way isfiiriyeen oo waxay yiraahdeen Ben Hawaas waa uu nasiray. Maalinkii dambe ayay Ben Hawaas ku noqdeen ayaga oo xanaaqsan. Waxay dhaheen Ben Hawaasow bakayle aan jirin oon qiimo lahayn oon waxna fahmayn ayaa 20 diinaar naga siisay suuqana ka jooga 1 diinaar wax ka yar. Wuxuu yiraahday waa 20 diinaar oo idinka siiyay anigu sacayga 40 diinaar ayaan ku soo heli lahaa idinka ayaa geesaha iyo dhegaha waxa dhanka jaray kadibna 20 diinaar ayaa laga soo siiyay 20 diinaar oo iga maqneed aniguna 20kii diinaar iga maqnaa kaliya ayaan idinku kordhiyay oo wax kale idinkuma kordhin aniga taa idinka idin la mid ahay 100 diinaar ayaan idinka siin lahaa laakiin qiimihii aan sacayga ku rabay intii iga dhinneed bes ayaa idinku kordhiyay waana kala qabnaa idinka waa markiina igaadeen anna markayga ayaa idin qaaday nimayahow as nabadgelino. Sidaas ayuun uga dhaqaaqay saddexdii nin ayaga oo yaaban. Halkaas ayayna maanta sheekadeenii ay noogu soo dhamaatay. Waxaynu ka codsanaynaa in subscribe-ka like share-ka intaba aadan nala agmarin. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.